بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودوادا ولالها سوماليدا كنا سودوادا هوتيل كينا خليج عدن. هوتيل كانوا هوتيل عصري ودوان لغا فري برتمها مقالة دبي قارهانا سوق ذهب وندو مسجد الكويدي كنا يالين عيسى الدنبي دينا عكرنا وكحيقو بنقى دبي إسلاميك بانك ayaa waxa aanu idinku haynaa cuntooyinkii caanka ay ku ahaayeen walaalihiina Yemen maxaa kamid ah waa digaagii Surbiyaanka ahaa waa bariiskii Surbiyaanka ahaa waa kalluunkii Kanaad sidoo kale waxaad helaysaa kalluunkii grillka ahaa chickenkii mandiga ahaa iyo waliba hilibkii mandiga ahaa sidoo kale intaas waxa ku dheer madfaya oo halkaas ka helayso maluuxa ayaa taala kalluunkii salmon fish iyo xamuur fish ayaa labadaba helaysaa masbas digaagii ahaa raatibkii ayaa ku yaala salata fahaasa ayaa helaysaa kalabaad digaagii la oran jiray ayaa helaysaa iyo sidoo kale hilibkii kalabaad la oran jiray madfuun chicken ama digaaga madfuun la yiraahdo ayaa helaysaa iyo waliba hilibkii Soomaaliduna ay jecleed ee caanka ku ahayd ee xaniid ka kalood ka helaysaa shaqaale u firfircoon loona tababaray shaqada ay qabtaan oo ka kala yimid jaaliyadaha Soomaaliya iyo waliba Yemen kuna hadla Carabi iyo Soomaali iyo sidoo kale Anfari sidoo kale waxa laga hadlaa hotelka luqad ay ku hadlaan dhammaan dadka Soomaaliyeed ee caalamka ku nool dhinaca nadaafadda oo hotel nadaafadiisa si aad loo ilaaliyay sidoo kalena waxa jira meel loogu talagalay haweenka oo kaliya ama qoysaska wada socda sida nin iyo xaaskii iyo carruurtiisa sidoo kale anigoo hani oo mulkiilaha hotelka Khaliij Cadan Amandi waxaan ku soo dhaweynayaa gacmo furan hoyga suugaanta iyo halabuurka iyo dhaqankiyo hidaha halka lagu leelo hibeeyaan degnaa hoyga suugaanta iyo halabuurka iyo dhaqankiyo hidaha halka lagu leelo hibeeyaan degnaa Areertaha daydaba hunoy
ورحمة الله وبركاته. وحنا لكم سلامنا دمان ولينها مسلمين كمان تستقبلون خاصة الصومالية. وحن آد مسلويننا هوتيل يمن الصومالية خليج عدن ويكيل دونا أنتوا آد دورالي دونا أنت صومالي وأنت أجانب له. وحن من هاي باكستان قاعدة ديران قلب فرين مسلويننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخواني. عندكم مطعم خليج عدن للمندي يستضيف إخواننا المواطنين الصومال اليمنية وغيرهم من الدول الأجنبية. نرحب بكم في أي وقت. الطلبات التي تطلبونها من أي شيء من أنواع الأصناف من اللحم وغيره من الأسماك.